caasho aad baad umahadsan tahay. Xalay abaara 10kii habeenimo ayay fariintaas soo gaartay. Dhalinyarana soo wacay noo sheegay in meel xaflad uu ka heesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen. Dhalinyaradii markay noo sheegeen waxaan weydiinay sababta. Waxay yidhahdeen waxaa jirtay hoolka oo xafladda ku dhigay fanaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay dadkii maxaha jihooyinkii rasmiga ahay ama dowladii Suudaan meeshaasay joogtay in loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn bandhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd. Marka waxaa dhacay hamwa laba dhankaasa oo ay dowladii iyo wax kale loogu sheegay meeshiina loogu sheegay hoolkii dadkii laga kireysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos. Marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu uu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag isla mar ahaantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kale. Marka dowladda Suudaanna waxaa sharci ka yaala dowladda hoose meelaha saas oo kale ama fanaaniinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qayb ka mid ah lacagtaasi waxay leedahay wargelin lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay markaa sameeyaan. Marka qalabka ugu weyn la sheegay dhalinyaradu galeen dhalinyaradii fanaanka keentay inkastoo marka horeba safaarad ahaanna loo soo xiriirin laakiin dhalinyaradii keentay iyagu isku xilqaamay fanaanka hore u keenayna waxay ahayn dhalinyaro iska caadiye. Marka taasaa keentay in uu jiro qalab noocaas. waa garta fanaanka Nimcaan Hilaac yaa la socday? Nimcaan Hilaac inta la socdo qof la socota ma jirto, kaligiis uu yimid magaaladan dhalinyaro caadi ah marka soo abaabuleen oo keenay. dhalinyarada fanaanka keentay ma iyaga mas-uuliyadda lahaa oo qaabkaa wax u sameeyey mise waxay ahayd miduu fanaankaba ka warqabay? maxay wararka kugu soo gaareen? anaga si wararka nagu soo gaareen fanaanku waa ka xanaaqay uusan ka warhaynin sida hadda nala sheegay oo ilaa marka dambe si xun ugu xumaaday. laakiin dhalinyarada waxaa la yidhi waxay islahayn arrinku ma weynaanay sababtoo ah ma islahayn mayn moodeynin in ay ogaanayaan booliskii wax noocaasa. Marka wax laisla ogyahay mahayn waxaan isleena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay laakiin inta badan arrinkiina way ka xaliyeen. Marka saasa marka dambe ay ku dhamaatay. booliska yaa wargeliyay yaa u sheegay booliska in meeshani uu ka heesayo fanaan aan u dhalan dalka si khaladana xafladda loo qabtay yaa booliska xogtaas oo dhan gaarsiiyey? caasho dowladdan waa dowlad weyn, waa dowlad weli aan burburin, waa dowlad isku dhisan. booliska meel walba oo xafladaha ka dhacayaan way tagaan way baaraan. markay arkaan xaflad Soomaali ama ay joogaan ajaanib ama ay joogaan muwaadiniin waxay xaq u leeyihiin inay weydiiyaan hoolka ay yidhaahdaan waxa meesha ka socda muxuu yahay. waxaa jiro boolis la yidhaahdo nidaamka guud oo ilaaliya oo shaqada ku leh xafladaha noocaas oo kale ah. Marka wax wargelin u baahan maaha, waa iyaga waxay leeyihiin waxay sameeyaan wareegto dadku waa ciidanku waa wareega. marka xafladaha meelaha ka jiraan way weydiiyaan xafladani ma u haystaa tasriix ama ogolaasho markay weydiiyaan qofka waxay ka ogaanayaan meeshii wixii ka socday iyo wixii warqada ku qornay inay iskhilaaf ka arkaan. marka lama dhihi karo wax wargelin u baahan maahan. marka dowladda Suudaan ayaa marka awoodeeda iyo ciidankeedii adeegsanaysa un bay ka ogaadeen. marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka Nimcaan Hilaac ma keligii baa heesayay mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama Soomaali ah ama Suudaan u dhalatay? bal noo sharax xafladda siday u dhaceysay. waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed. waxaa jirta fanaaniin kale oo Suudaaniya oo la yidhahdo fanaan weyn oo isagana Soomaaliga ku haysa oo kale carabina ku haysa oo Suudaani ah oo la yidhahdo taariikhdeena meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumay sida noo sheegay dhalinyaradu. laakiin dhanka Soomaalida kaligiis oo ahaa xafladuna xaflada weyn oo Soomaaliya kasoo qayb gasho inkastoo maalmahan ay dana jirto oo la Soomaalida qaarkood ay doonayaan in abaaraha iyo loo qayb qaato oo xoogaa kasoo horjeeda way jireen. laakiin waxaa la sooran karaa un waxay iska ahayd xaflad yar oo iska gaaban oo ay dhalinyaro Soomaali kusoo qayb galeen. marka ma keligii baa la xiray mise dhalinyaradii kale ee reer Suudaan ahayd iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay? isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacaan fanaanka ay yidhahdaan fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed lama xiri karo lama taaban karo. boolisku markuu arrinta soo galay wax cid walba isku dayday inay ku celiso ayuu hore u taxaabay. laakiin xilli dambe safaaraddu Zaale gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale. fanaankiina Saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay ganaax lacageed oo adiga 1500 dollar u dhiganta lacag Suudaaniga ahna lacag 20,000 oo jinaha Suudaaniga ah. kadibna dhalinyaradii iyo abaabulay ayaa Saake lacagtii bixiyey sidaasna fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado ka hor. anagu waxaan wadnay inaan meelo badan kala hadalno
oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka hidaha ee dalka suudaan in laga hadlo barnaamijyo dhaqan isdhexgala laga samayn kara laakiin waxaad moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaaban ay wadeen oo ay xafladu saas ula weynaanin laakiin uun booliska iyo markii ay kawar heleen uun arrinta la weynaatay laakiin markii hore waa la sahashaday aada loo sahashaday sida muuqata oo dhalinyaradina dhalinyaranimana way qaadeen dhalinyaradii laakiin haddadan waxaad moodaa inay wax un ka barteen